galmudug ayaa ku jirta xaalad jahwareer ah. kooxda ahlu sunna ayaa dib u soo rogaal celisay iyadoo maanta qabsatay magaalada muhiimka ah ee Gurceel. kooxdan ayaa hal sano iyo dhowr bilood ka hor ciidankeedii ku wareejisay dowladda federaalka ah iyadoo markii dambena si awooda deegaanka looga saaray hoggaankii kooxda. muddo ayay dibad joog ahaayeen, balse dhowaan ayay Sheekh Shaakir iyo Macallin Maxamuud dib ugu laabteen deegaanada Galmudug. soo laabashadoodu waxay la xiriirtay ka qaybgalka siyaara sanadeed, balse waxay u bedeleen ciidan aruursi. waxay markii hore sheegeen inay rabaan inay dib u bilaabaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo dib u soo xoogaysatay tan iyo markii ahlu sunna ka baxday gobolka. balse maamulka Galmudug waxaa la sheegay inuu helay akhbaar sheegaysa in ciidan aruursiga ahlu sunna inuu xambaarsan yahay damac siyaasadeed iyo inay dib u qabsadaan goobihii ay ku wareejiyeen Galmudug. maamulka Galmudug ayaa dhowaan ciidan duldhigay deegaanka Bohol oo ay ku sugnaayeen ciidamada ay aruuriyeen kooxdu. dagaalla ayaa shalay ka dhacay deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud. ciidanka dowladda federaalka ah iyo kuwa Galmudug ayaa la sheegay in iyagu dagaalka bilaabeen. khasaare xoog leh ayaa ka dhashay dagaalkii shalay dhex maray kooxda ahlu sunna iyo ciidanka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda federaalka ah. waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan 10 ruux iyo dhaawac ka badan 20 qof. qaar ka mid ah ciidankii Galmudug ee goobta u tagay inay la dagaalamaan ahlu sunna ayaa la xaqiijiyey inay u goosteen dhanka kooxda ahlu sunna, taas oo adkaysa dagaalka. kooxda ahlu sunna ayaa sidoo kale shalay qabsatay 4 gaari oo 2 ka mid ay ahaayeen nooca dagaalka. maanta oo Jimco ah ayay kooxda ahlu sunna dagaalaan kula wareegtay magaalada Gurceel. waxaa la arkayay dadka deegaanka oo si weyn ugu faraxsan soo laabashada kooxdan oo halkaas ka talinaysay muddo ka badan 10 sano. sida caadiga ah, Gurceel waa magaalo ay wadaadadani ku leeyihiin shacbiyad xoog leh. ahlu sunna ayaa hadda wada abaabul iyo ciidan qorasho hor leh kadib markay natiijo hordhaca ka gaareen dagaalkii shalay. hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa galabta ku laabtay magaalada Dhuusamareeb. waxaa kaloo la sheegay inay dowladda federaalka u dirtay garab military. qoorqoor iyo hoggaanka ahlu sunna ayaan heshiinin tan iyo waagii uu awood ciidan uga saaray magaalada Dhuusamareeb. waxaa loo arkaa inay tahay fursad la dayacay inaan wada hadal iyo dib u heshiisiin lala furin kooxdan oo caqiid ahaan ku fidsan deegaanka. waxaa jiray baaqyo hore oo ahaa in laga baaqsado dagaal, kuwaas oo aan shaqaynin. waxaana mar kale madaxda Galmudug iyo kuwa ahlu sunna labadaba loogu baaqay inay wada hadal ku xalliyaan xiisadda taagan. beesha degan caasimadda Galmudug oo kala dagaalkii hore taageersanayd in ahlu sunna la bixiyo si loo tijaabiyo dowladnimada Galmudug oo Dhuusamareeb ku shaqaynaysa ayaan la ogeyn siduu hadda mowqifkoodu yahay iyo inay xiiso u qabaan Galmudug kala taagan iyo ahlu sunna oo mar kale ka talinaysa deegaanka. tegista uu Axmed Qoorqoor tagay magaalada Dhuusamareeb galabta ayaa la filayaa inay jihayso xiisadda. hogaamiyaha Galmudug waxaa hor taalla inuu dariiq farsamaysan ku maareeyo ahlu sunna oo uu dabacsanaan kaga gudbo xilli doorasheedkan, ama inuu qaato go'aan dagaal oo toos ah kaas oo aan la aqoonin cidda ku adkaan doonta. maxay kula tahay adiga?